in ka badan 20 musharax oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Garowe ayaa isku raacay 3 qodob oo kala ah in isbedel dhaba uu Puntland ka dhaco doorashada dhacaysa dhawaan, in musuqmaasuq ka dhaca doorashada dhexdeeda laga hortago iyo in doorashada Puntland laga ilaaliyo wax faragelina. musharax madaxweyne aadan maxamed ciise gaadaale oo afayeen u ah musharaxiinta ayaa warbaahinta u akhriyay qodobada ka soo baxay kulanka musharaxiinta. maanta oo ay tahay 25-ka bisha December sanadka 2018 waxa PDRC oo Garowe ku taala isugu yimid murashaxiin gaaraya 24 murashax oo madaxweyne sanadka 2019 bisha January waxaanu ku heshiinay dhamaantay oo isku waafaqsanahay nooc walba oo musuqmaasuqa oo Puntland ka jira inaanu la dagaalano si wada jir ah oo dalka musuqmaasuqa ragaadiyay aanu ka noqono dadkii tirtiri lahaa Ilaahay haduu yiraahdo. waxaa noo labaysa isbedel wada jir ah oo wax ku ool ah dadka yaga iyo dalka yaga Puntland inaanu ka sameeyno si wada jir ah iyo si kaliya intaba inaanu u qabanno. waxaanu kala isku raacnay wax alla wixii faragelin ah inay aanu ka digayno doorashadu si ay ugu dhacdo si hufnaana oo daahfuraana oo cadaalad ah oo run ah say ugu dhacdo wax alla wixii mugdi gelinaya iyo wax alla wixii interruption in ay ka madax banaanaato. waxaanu kale oo aanu iyadana isla ogolaanay platform debateska ama meelaha dadka bulshada rayidka ah programyada ay diyaariyaan oo ay rabaan inay ku maqlaan codka murashaxiinta mujtamacuna uu su'aalo weydiiyo dadka murashaxiinta oo dhan ama qaarkood wixii hadba ka qayb gali kara barnaamijka waanu soo dhaweynaynaa waana dhiiri gelinaynaa waana isla ogolaanay. waxaanu ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland inay aad noogala shaqeeyaan doorashada ina ku soo aadan inay u dhacdo si cadaalad ah oo hufan oo daahfuran oo wada shaqeyn leh. dhinaca kale musharaxiinta oo kulan la yeeshay qaar ka mid ah haweenka daneynaya inay ku biiraan siyaasadda Puntland ayaa si wada jir ah u taageeray in dawladda soo socota qayb mugle laga siiyo xilalka haweenka Puntland oo ay sheegeen in xuquuqdoodii siyaasadda aysan ka helin dawladda waqtigeedu dhamaanayo. Mustafa Bulshale, Som News TV, Garowe.